السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرضية كحران channel كيغا أقوم كورسي تي في مرلبات سو دوادا وعشر كلو آد مهمة عشر كان وحن كغا هادلينا هاب dareen wadka ama nervous system ka waxa Englishka lagu yiraahdo sida caadada noo ah marka hore waxaan ku bilownaa luqadda Soomaaliga si aan faham guud ka idinkaga siino kadibna waxaan u gudubnaa luqadda Englishka ama slideska systemka noogu jira inaan slide ahaan idinku tusno si aad note uga qaadataan haddaba ardayay sidaan hore idinkugu sheegnay mar walba waxaanu ku dadaalinaa inaad marka hore ku fahantaan luqadiina hooyo luqadda af Soomaaliga wixii markaad fahantid cilmi ahaan u fahantid hadhowto inaad luqad kale u bedelatid wax macnaa weyn samayn mayso haddaba haddaad ku cusub tahay channelkayga fadlan subscribe garee lana wadaag asxaabtaada qiimiga badan oo aad jeceshahay inay aqoontaan ka faa'iidaystaan haddaba haddaan u gudubno habdareenwadku muxuu yahay macnaha guud habdareenwadku waa qaabka isgaarsiineed ay ku wada xiriiraan qaybaha jirkeena waa qaabka isgaarsiineed ay ku wada xiriiraan qaybaha jirkayaga haddaba qaabkaasi waxaa halbowlo u ah habdareenwadka maskaxda ayaa waxay u tahay qaybta ugu muhiimsan oo ah halka laga soo saarayo amarada iyo commandiska jirka qaabka u shaqeynaya iyo falcelinta wax walba oo dareen kasta falcelinta laga sameynayo jirkayaga iyo qaybo kale oo badan oo jirkayaga kamid ah unugyo badan oo jirkayaga kamid ah ayaa waxay qayb ka yihiin dareenka balse falcelintu waxay ka imanaysaa maskaxda waxaa soo qaadaya waxa la yiraahdo xangulaha iyo neuronska ayaa qaybinaya haddaba waxaa jira waxa la yiraahdo central nervous systemka wuxuu ka kooban yahay waa maskaxda iyo xangulaha brainka iyo spinal cordka labadaas ayuu ka kooban yahay waxaa jira peripheral nervous systemka qaybtiisa kale oo ayagana ah qaybaha kale ee maskaxda ama nudada geeya fariimaha kana soo qaada haddaba unugyada ka qayb qaata dareenka waxaa ka mid ah skinkayaga taabashada ayaanu ku dareynaa kulayl qabow hadda waxay yihiin markaa taabatid ayaa dareemaysa waxaa jira sanka waxaan ku dareynaa urka dhagaha waxaan ku dareynaa maqalka indhaha waxaan ku dareynaa aragga wixii markaan aragno marka intaas oo dhan wax walba markaad aragtid ama taabatid ama urisid waxaa toos loogu qaadayaa fariimahaasi maskaxda ayaana go'aan kasoo gaaraysa haddaba unugyada waxaa jira unugyo dareen waxa la yiraahdo baxa iyo kuwa gala inta badan kuwa baxa waa kuwa fariimaha dibadda u qaada iyo wixii maskaxda falcelinta ay keento kuwaas oo kale waxaa ka mid ah unug dareen adeega kuwa la yiraahdo unug dareen adeega oo kale waa kuwa taga murqaha inta badan si muruqii uu u sameeyo response falcelin waxaa kaloo ayadana sidoo kale jira unugyo waxa la yiraahdo unugyo dhiiqeyaal baa jira kuwaasi waxay tagaan waxa la yiraahdo halka loo yaqaan qanjirada si ay u dhiiqiyaan qanjirada oo falcelin ay u sameeyaan hadda markaasi hormoneska jirku u baahan yahay si falcelin loogu sameeyo haddaba dareenku waa qaybta ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka ah qayb ka mid ah dareenka hadduu qofka ka tago wuxuu waayayaa qaybtaasi inuu jirkiisa falcelin ka sameeyo hadda wixii ku imanaya halkaas ayaa waxaan kusoo koobaynaa qaybta koobaad waxaan idiin gudbinaynaa qaybta labaad oo ah qaybta slideska ah oo casharada sanad uga qaadata la socosho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم أرضي كسو دوادا عشركيغا casharka qaybtii hore saan uga soo hadalnay oo aan idinkugu macnaynay si guud Soomaali ahaan qaybtan waxaan idinkugu macnaynaynaa English okay haddaba waxaanu ka hadlaynay habdhiska dareenwadka oo nervous systemka Englishka lagu yiraahdo the nervous system includes habdhiska dareenwadka ama nervous systemka wuxuu ka kooban yahay ama ku guda jiro ka mid ah central and peripheral nervous system labada qaybood ayay isugu jiraan the sense organiska wax dareema ama dareen kale waxaa ka mid ah indhaha waxaa kale oo waxay ka kooban yihiin wax la yiraahdo receptors that are sensitive to stimuli receptors sensitive ku ah aad u dareema waxa la yiraahdo isbedelka waxa ku hareeraysan stimulida waa waxa ku hareeraysan ama qabow ama kulayl ama ur ama arag and response kabacdina way falcelin waxay ku sameeyaan actionka hadba marka xilliga loo baahan yahay ayay falcelin ahaan ugu sameeyaan so nervous systemka bini'aadamka humanka waxa la yiraahdo central nervous systemka saadayo idin sheegna waxay ka kooban yihiin
brainka maskaxda iyo spinal cordka oo xangulaha ah. The peripheral nervous system kan waxa weeye nerve cells waa unugyo dareen wadayaal that carry information kuwaasoo sida usoo xambaara ama usoo qaada xogta informationka to or from ama keena ama ka qaada central nervous systemka. So central nervous systemka saan sheegnayba waxa weeyaan labada wuxuu ka kooban yahay maskaxda iyo spinal cordka oo ah xangulaha dheer iyo maskaxda. Marka maskaxdu waa halka waxa la yiraahdo operationka dhan laga fulinayo oo ka dhacayo go'aamada laga soo saarayo falcelinta laga keenayo weeyaan. Okay, haddaanu so nerve cells are also called nerve cellska unugyada ama waxa la yiraahdo unugyada dareensidayaashu waxa also loogu yeeraa neurons waa loogu yeeraa. They are adapted to carry electrical impulses from one place to another. Waxay soo xambaaraan waxa la yiraahdo xogaha ayay waxay ka soo xambaaraan meel ka soo qaadaan impulseska dareenkaas waxayna geeyaan meel kale. Waxay leeyihiin waxa la yiraahdo halkaas uga jeeda axonka which waxa la yiraahdo long fiber bay ka kooban tahay. Waxa la yiraahdo insulated by fatty sheath waxa ku daboolan oo ku dahaaran waxa la yiraahdo dufan ama waxa la yiraahdo waxyaabo waxa loo yaqaan lipid oo kale ama dufan oo kale. They have ama xayr aan dhahnaba they have tiny branches waxay leeyihiin tiny branches halka ay ku dhamaadaan. Soomaali ahaan waxa lagu yiraahdaa waxa la yiraahdo geed yarayaal ayaa lagu yiraahdaa loo soo gaabshaa dendrites kan geed yarayaal ayaa Soomaali ahaan lagu yiraahdaa. Halkan waa nucleuskii waa naqaanaa waa bu'dii. Nerve ending kana waxa la yiraahdaa dhamaadyo dareen wade ayaa halkaana lagu yiraahdaa af Soomaaliga. Tan waa cytoplasm halkaana waxa ku jirta bu'dii ayaa ku jirta. Okay, marka kan isku dhan waxa loo yaqaanaa neuronka sidiisaba waa halbeega uu ka samaysan yahay unugyada iyo leafyada waxa isku haya isku xira gaar ah oo loo yaqaan neurologia ayaa loo yaqaanaa. So unuga dareen wadka waxa ka baxa leaf dheer unugyada dareen wadaha waxa ka baxa leaf dheer oo qura kaas waxa la yiraahdaa axon. Axonka waa kan aan horay idinkugu tusnay leafka dheer axon ayaa la yiraahdaa leafka dheer oo ka baxa. Waxa kale oo ka baxa laamo yaryar oo isku maran lana yiraahdo geed yarayaal ayaa la yiraahdaa laamaha yaryarka ah weeyaan. Haye marka okay hadda waxaan u gudbaynaa wax la yiraahdo receptors to effectors. So the diagram kan wuxuu ku tusayaa how information flows qaabka xogta ay u talaabayso uga gudbayso ama ay u soconayso from receptorska to the effectorska ay u soconayso marka la joogo nervous systemka. So marka halkan waxa jira waxa la yiraahdo receptor the sense organ waa sense organka dareemaya wax dareemay kadib waxa qaadaya sensory neurons ka qaadaya waxa la geenayaa central nervous systemka ayaa la geenayaa xangulaha ama maskaxda. Ka bacdi waxa la yiraahdo waxa ka soo qaadaya motor neuronka ayaa ka soo qaadaya informationkii ama falcelintii reflex actionkii ayuu ka soo qaadaya habkii falcelineed. Ka bacdi waxa la keenayaa effectorskii waxa weeye muscleskii ama oo murqahii oo contractionka sameynayay dhaqaaqa sameynayay ama glandskii qanjiradii oo dhiiqayay oo sii deynayay hormoneskii marka loo baahan yahay in falcelin ahaan la sameeyo. So receptorsku waa maxay? Receptorsku waxa weeyaan a group of specialized cells waa koox unugyo khaas ah unugyo si khaas ah u diyaarsan ah sababtoo ah unugyada nervous systemka la mid ma ahan unugyada kale waayo waa kala duwan yihiin functionka ama shaqada ay qabanayaan ayaa ka duwan shaqada unugyada kala qabanayaan. They can detect waxay soo qaban karaan oo u fududahay inay dareemaan ama qabtaan change in the environment isbedelka environmentiga deegaanka ku hareeraysan ama deegaanka markaasi ay waxa la yiraahdo qofka uu joogo waxba soo uray isla markii wax waa dareentay kulayl baa yimid waa dareentay waxa la yiraahdo waxba
agtaada soo maray ishaa ku dhufatay waad aragtay waxaasoo dhan waa dareenka then waxay soo saarayaan electrical impulses bay soo saarayaan falcelin waxay soo saarayaan xog informationka la xambaarayo si falcelin looga sameeyo wixii sensory organisms waxay ka kooban yihiin receptors that response sensory organismka containerska receptorska ah waxay ka kooban yihiin waxa la yiraahdo receptorskaas oo ka falcelinaya specific stimuli isbedel ku hareereysan oo gaar ah isbedelka wuxuu noqon karaa urka markaa si gaar ah looga falcelinaya haddii wixii kulayl uu yimaado kulaylkii si gaar ah looga falcelinaya haddii qabow yimaado si gaar ah looga falcelinaya haddii qaylo yeerto dhegihii baa maqlaya dhegihii markay maqlaan xogta la qaadaya si maskaxdii waxay uga soo falcelinaysaa si ka duwan sidii waxa la yiraahdo mid gacanta haddii kulayl aad taabatid oo kale gacanta ka laaban kartaa haddaa kululaatid oo kale waa isbabinaysaa babinta gacantan wax babinaysa waxa la yiraahdo amar la soo siiyo weeye murqahan shaqada ay qabanayaan marka wixii waa wax isku xiran qayla maqashay ama waa meesha waa ka cararaysaa ama waxa la yiraahdo wixii qayladii meesha ka timid baa eegaysaa sababtoo dareenkaagii ayaa wuxuu ku siinayaa maxaa dhacay soo fiiri soo hubi ama waxa la yiraahdo qayla yeertay qaylada mid argagax leh ka carar marka hadba waxa la yiraahdo organisku falcelintooda waxay ku saabsan tahay hadba xaaladda lagala kulmo meesha ku hareeraysan fiiri hadda skinka oo kale touchka oo kale haddii la taabto wuu dareemayaa haddii temperature cimiladu isbedesho kale kulayl ama qabow noqotona wuu dareemayaa carabka oo kale chemicalska oo kale haddaa cuntid cuntada dhadhankeedii noocay tahay qaraar tahay macaan tahay ma waxay leedahay waxa la yiraahdo gas baa ku jira carabkaaga wuu soo qabanaya ma bisbaas bay leedahay sanka oo kale chemicalska oo kale ayuu dareemayaa haddii hawada oo kale wax ay soo galaan chemical ama wax qurmuna ay soo galaan oo kale indhaha oo kale araggii bay waxa la yiraahdo stimuluskooda yahay isbedelkii areada hareeraheeda ku yimid oo kale dhagaha oo kale qaylada oo kale marka effectorsku are parts of the body effectorsku waa qayb ka mid ah jirkaaga unugyo maaha waa unugyo waa macnaheedu waxa la yiraahdo waa qayb waa parts ka mid ah jirkaagii ma aha cells u gaar ah marka partiskaasi waxay noqon karaan waa organs waxay noqon karaan muscles oo kale noqon karaan murqihii waxay kala noqon karaan qanjirada waxay soo saarayaan falcelin markii la soo qabto waxa la yiraahdo isbedel markii uu yimaado ayay falcelintii qayb ka noqonayaan murqaha kale muscles contract murqaha kale way soo ururayaan to move an arm si gacanta loo dhaqaajiyo kale murqihii baa soo ururinaya muscles oo kale squeeze waxay isku soo ciriirinayaan saliva from salivary glands macnaheedu si loo sii soo daayo qanjirada ay u soo sii daayaan candhuuf ama dheecaan afka dhexdiisa ayay wax la yiraahdo waxay sameynayaan squeeze isku soo ciriiriyaan isku soo ururaan a gland releases hormone qanjirada kale waxay soo saarayaan hormoono ayay jirka waxay ku sii deynayaan dhiigga ku darayaan si loo balance gareeyo hadda markaa shaqada loo baahan yahay so marka diagramkan oo kale wuxuu ku tusayaa stimulus oo kale kasoo qaad stimulus oo kale waxaan oran karnaa waa dabka oo kale waa wixii isbedelkii yimid oo kale marka kulayl baa yimid ama qabow baa yimid ama qayla maqashay ka bacdi receptorskii ayaa soo qabanaya receptorska oo ah dhagihii ama gacmihii ama sankii hadda meeshii wax la yiraahdo unugii then maxaa dhacaya waxay u gudbinayaan sensory neuronskay u gudbinayaan informationkaas toos ka bacdi waxaa dhacaya relay neuronkii ayaa wax la yiraahdo xogtii sensory neuronkii wuxuu u gudbinayaa relay neuronkii ayuu informationkii siinaya then maxaa dhacaya xogtii waxaa lagu soo celinayaa oo dib loo soo siinayaa motor neuronkii si wixii falcelintii falkii laga qaban lahaa ama wixii laga sameyn lahaa asna wuxuu xogtii gaarsiinayaa ama informationkii geenayaa reflection actionkii la qaadi lahaa effectorskii buu siinayaa effectorskii markuu siiyo effectorskii waa sida qanjirada oo kale murqaha oo kale wixii markaasi falka sameyn lahaayo jirkaaga part of your body ahaa then response waxaa dhacaya waxa la yiraahdo falcelintii loo baahnaa okay reflex actionka waxa la yiraahdo reflex actionka waxa weeyaan is a way waa habka the body to automatically habka jirku si automatic ah and rapidly response macnaheedu waxa la yiraahdo uu uga falcelinayo si dhaqso ah to a stimulus to minimize any further damage to the body waxa la yiraahdo si uu u yareeyo macnaheedu waxa la yiraahdo waxyaabaha ka dhacay hareeraha jirka ama waxa jirka ku yimid si uu u yareeyo in dhaawac inta ka badan jirka uu sii gaaro ayuu wax la yiraahdo falcelin automatic oo si degdeg ah u dhacaysa tusaale ahaan dab baa taabatay quickly waxa jirkaagii falcelin buu ka sameynayaa
si gacantii hore kala soo bood si dabkaani uu ku gubay laakiin si uusan dhaawicii intii in ka badan uusan kusii gaarsiin. It follows this general sequences. qaabka ay u dhacayso waxa la yiraahdo waa qaabkan hoos ka muuqda. Stimuluskii dabkii ama wixii waa taabatay ama qayladii baa yartay, kabacdi receptorskii ayaa waxa la yiraahdo bodigii. Receptorskaas waxay noqon karaan waxa la yiraahdo sankii, afkii, dhegihii, hadda meeshii jirkii, meeshii wixii ku taabatay. kabacdi toos baa waxaa loo siinayaa sensory neuronkii, dareenwadayaashii neuronska ayaa waxaa la siinayaa waxa la yiraahdo informationkii. kabacdi waxay u gudbinayaan relay neuronskii u gudbinayaan. Then kabacdi markaasi xogtii waxaa dib u soo qaadaya motor neuronkii ayaa soo qaadaya wixii falcelintii laga sameyn lahaa, reflectionkii laga sameyn lahaa. Then effectorskii oo ah qanjiradii, murqihii ayaa waxa la yiraahdo amarkii la siinayaa. haddii qanjirada loo baahan in la dhiijiyo hormones oo markaa looga hortegayo wixii macnaheedu waxa la yiraahdo wixii ku dhacay ama dhacdadii ka dhacday jirka dhexdiisa, ama murqihii oo la oranayo meesha ka soo qaad gacantii, ama qofkii la oranayo ka tag meesha soco, murqihii lugihii la hawl gelinayo, ama waxaad cuntay oo kale dareenkaaga yimid oo basbaas oo kale kulul, ama wax adigu dee afkaaga galay oo markaasi loo baahan yahay dheecaan badan in lasoo sii daayo oo la cadaadinayo waxa la yiraahdo qanjiradii si loo sii daayo saliva candhuuf. Okay, the nerve pathway flowed by the reflex action calls reflex arc baa lagu magacaabaa. For example, reflex arc happens if we accidentally touch something hot. waxay reflex actionka arkiga oo kale waxa weeyaan sida tusaale ahaan markii si aan ula kac ahayn u taabatid wax kulul oo isla markiiba aad gacanta kala boodi. So tusaale ahaan waa kana gacantaas waxay taabatay dabkaasa u taabtay qofkii, dabkii markuu taabtay kan waxa la yiraahdo waa receptorskii. Then waxaa qaaday sensory neuronskii ayaa xogtii qaaday, kadib waxaa loo geeyey relay neuronskii baa loo geeyey oo ku attach garaysan spinal cordka ama central waxa la yiraahdo central nervous systemka. actionkii lagu soo warceliyey ama falcelintii lagu soo celiyey ayaa waxaa dib u soo qaadaya motor neuronskii, kabacdina muruqii baa la keenaya, muruqii baa la amraya contraction inuu sameeyo oo uu gacantii dib u soo laabo. Receptors in the skin detects stimuli change in temperature ayay dareemayaan. Sensory neuronskii send impulse to relay neurons. xog bay waxay u dirayaan waxa la yiraahdo relay neuronskii. Then maxaa dhacaya? Motor neuron sends impulse to effectors. waxa la yiraahdo motor neuronskii ayaa wuxuu u soo dirayaa waxa la yiraahdo impulses buu u soo dirayaa effectorskii oo ah murqihii. kabacdi murqihii effectorskii ah ayaa waxay gacantii ayaa waxa laga soo fogeynayaa dabkii. Okay, haddaba casharka dhammaadkiisa waxaan rabnaa ardaydu inay fahantay iyo in kale inaan su'aalahan kaga soo jawaabtaan qaybta commentiga haddii aad fahantay casharka. su-aasha koowaad waxay ku leedahay what type of neuron transmitters a signal from sensory organ to the central nervous system. neuronkan keebaa weeye kan waxa la yiraahdo transmitted signalka ka soo qaada from sensory organska ka soo qaada kadibna u geynaya waxa la yiraahdo central nervous systemka gaarsiinaya ma sensory neuronka, ma relay neuronka, ma motor neuronska. su-aasha labaadna waxa weeye waxa la yiraahdo keebaa central nervous systemka ka soo qaadaya xogta oo siinaya effectorska sida murqaha ama glandiska oo kale, si ay ama kana wax murqihii u dhaqaajiyo ama waxa la yiraahdo glandiska ama qanjirada ay u dhiijiyaan waxa la yiraahdo hormoneska. ma sensory neuronska, ma relay neuronska, mise waa motor neuronska. su-aasha saddexaad waxay oranaysaa which part of the nervous system qaybtee ayaa nervous systemka is not involved aan ka qayb qaadanayn producing reflex actionka aan shuqul ku lahayn qaybtee weeye. ma brainka maskaxda, ma spinal cordka, ma receptorka. qayb mid kamid ah ayaa jirta aan qayb ka ahayn processka reflex actionka. qaybta ugu dambeysa hadda aan idin tusay diagramka sawirka idin ku tusay jantuska. su-aasha ugu dambeysa waxa weeyaan which of these is not reflex response. kuwaan soo socda keebaan ka mid ahayn falcelin reflex waxa la yiraahdo response aan ahayn. moving a hand of something hot, gacantoo laga dhaqaajiyo meel kulul. sneezing inaad hindhistid. picking up a book inaad buug qaadid. midkeebaan waxa la yiraahdo reflex response aan ahayn.
intaasaan kusoo koobaynaa jawaabaha fadlan commentiga qaybta commentiga ku reeba aad baa umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu